kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin baa dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wacaal wixii caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socotaan Wardawr Media. qodobada aanu idinkugu hayno wararkana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee Israa'iil oo bilowday dhageysiga dacwado ka dhan ah ra'iisul wasaaraha waddankaasi Benjamin Netanyahu. dowladda Masar oo sheegtay in 18 maleeshiyad hubaysan ah ay ku dileen magaalada Sinai ee waddankaasi Masar. Iran oo dib u furaysa masaajidada iyo goobaha kale xilli coronavirus uu wali dalkaasi ka jiro iyo qodobo kale. ciidamada ammaanka ee waddankaasi Masar ayaa waxa ay gacanta ay ku soo dhigeen qoryo nooca darandooriga u dhaca suuman lagu soo buuxiyay markaasi amaba lagu xiray waxyaabaha qarxa kadib markii ay iska hor imaad u dhaxmaray iyaga iyo maleeshiyad hubaysan. wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Masar ayaa waxa ay sheegtay in 18 qof oo ay uga shakisan yihiin in kooxaha hubaysani ay xubno ay ka yihiin ay ku dileen waqooyiga magaalada Sinai kadib markii uu dagaal dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kooxahani. arrintani ayaa waxa ay imanaysaa 2 maalmood kadib markii qarax dad badan ay ku dhinteen ay sheegteen kooxda hubaysan ee ISIS. amniyaadka qaranka ee waddankaasi Masar ayaa waxa ay heleen sir ah in qalab ay adeegsadaan kooxaha argagixisada ah iyo waliba xubno ka tirsan kooxahaasi ay ku dhuumaalaysanayaan deegaanka lagu magacaabo Bir al-Abid taasi oo ka tirsan magaalada Sinai. halkaasi oo ay ciidamada ammaanku ay sheegeen inay qorsheynayeen kooxahani in ay ka fuliyaan amaba ka soo abaabulaan howlgallo cadaawad ah oo ay kala soo horjeedaan ciidamada waddankaasi Masar sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha warbixin ay maanta ay soo saartay. goobtii ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyadkan hubaysan ayaa ciidamada dawladda ee waddankaasi Masar heleen iyagoo markaasi weerar ku qaaday deetana 18 dagaalyahan ka dilay kooxdaasi. ciidamada ammaanka ee waddankaasi Masar ayaa waxa ay heleen 13 qoryaha darandooriga u dhaca 2 suun oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa iyo 3 kale oo waxyaabaha qarxa ah sida ay sheegtay wasaaraddu. dhacdadani ayaa waxa ay imanaysaa kadib markii ciidamada ammaanka ee waddankaasi Masar ay sheegeen in maalinnimadii Khamiistii 10 askari oo uu ku jiro sarkaal lagu dilay amaba lagu dhaawacay weerar lagula beegsaday deegaanka Bir al-Abid ee waqooyiga Sinai. ciidamada kooxda argagixisada ee ISIL ayaa waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi iyagoo qoraal ay ku soo bandhigeen amaba ku soo boostigareeyeen janalkooda uga waramay arrintan. ciidamada ammaanka ee waddankaasi Masar ayaa jimcihii iyagana waxa ay dileen 2 nin oo ay uga shakiyeen inay ka tirsan yihiin amaba xubno ay ka yihiin kooxdaasi oo ay ku dileen waqooyiga gobolka Sinai sida uu sheegay afayeen u hadlay dawladda Masar oo lagu magacaabo Tamir al-Rifai. dawladda Iran ayaa waxa ay dib ay u furi doontaa masaajidada iyo meelo kale oo si xor ah ay u furi doonto iyadoo cudurka coronavirus uu wali ka socdo waddankaasi. cunaqabataynta la qaadayo ee dhinaca isu socodka dadweynaha ayaa waxa la leeyahay waxa ay fududayn doontaa xayiraadaha looga gol leeyahay xakamaynta faafidda cudurka coronavirus. afayeenka wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Iran Kaynosh Jahanbur ayaa waxa uu sheegay in 47 qof ay u dhinteen fayraska coronavirus 24 saac ee la soo dhaafay waana tirada ugu hooseysaba uu yiri maalin kasta 55 maalmood. waxa uu sheegay afayeenkan shir jaraa'id oo uu qabtay in uu rajaynayo in isbeddelku uu sii socon doono maalmaha soo socda. madaxweynaha waddanka Iran Xasan Ruuxaani ayaa waxa uu sheegay hadal uu telefishinka uu uga baahiyay bulshadiisa in 132 degmo oo ka tirsan dalkaasi in 3 meelood meel ay ka mid yihiin maamulada dalka isla markaasina ay dib ay u furi doonaan masaajidiyadooda berri. kala fogeynta bulshada ayaa waxa ay ka muhiimsan tahay salaada wadajirka ayuu hadalkiisa intaasi ku sii daray madaxweynaha isagoo ku dooday in islaamku uu arko mid waajib ku ah nabadgelyada halka masaajidada lagu tukado ay kaliya ay tahay wax dadka markaasi lagula taliyo amaba sunno ah. maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa bilowday maanta dhageysiga dacwadaha ka dhanka ah Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha waddankaasi oo soo dhisayo dawlad halka ay wajahayaan eedeymo iyo dambiyo loo haysto. dacwadda oo ay wadaan guddi aad u ballaaran oo ka kooban 11 garsoore oo sida muuqata wax naadir ah isla markaana si live ah loo baahinayo ayaa diiradda lagu saarayo arrinka ku saabsan in siyaasiga uu soo dhisi karo dawlad inta lagu guda jiro eedeymahan loo haysto
waana wax aan sharciga Israa'iil si cad u mamnuucayn. haddii maxkamaddu ay cod u qaado awoodda Netanyahu ee jagada ra'iisul wasaaraha, Israa'iil waxa ay geli kartaa baa la leeyahay fawda siyaasadeed, waxaana ay u badan tahay in ay dhici karto doorashadii afraad ee isku xiga ee dalkaasi ka dhaca muddo 12 bilood gudahood. maxkamadda sare ayaa waxa ay noqotay ubuucda hilaaca dhaleecaynta Netanyahu iyo xulufadiisa siyaasadeed, kuwaasi oo ku eedeysan isqabqabsi iyo faragelin siyaasadeed, halka hogaamiyayaasha muddada dheer ee mucaaradka ka soo horjeeda ay u arkayeen in arrintani ay salka ay ku hayso dimuqraadiyaddii oo weerar khatar ah lagu soo qaaday. banaanbaxayaal taageersan dimuqraadiyadda ayaa wadooyinka socod ku marayay asbuucyadan oo dhan si ay uga mudaharaadaan xukuumadda Netanyahu in ay dalkaasi Israa'iil sii maamusho. toddobaadkii hore dibadbaxayaal ka soo horjeeda dhageysiga dacwadaha ka dhanka ah Netanyahu ee maxkamadda sare ayaa iyagana geestooda mudaharaad ka dhigayay dalkaasi. tallaabo gaar ah oo ay qaaday maxkamadda sare ayaa maanta waxa ay ku bilowday in ay si live ah website-keeda amaba boggeeda internetka uga baahiso dhageysiga dacwadaha loo haysto Netanyahu xilli waddanka intiisa badan lagu guda jiro xayiraad dhinaca isu socodka dadka ah coronavirus dartii. garsoorayaasha, qareennada iyo karaaniyaasha ayaa xirtay maaska wejiga iyagoo muraayado plastic ah isu dhexaysiiyey 11kooda kuraasta ay ku kala fadhiyaan, sidaasna dacwadda ka dhanka ah ra'iisul wasaare Netanyahu ku dhageysanayay. Netanyahu ayaa horaantii sanadkan lagu soo oogay eedeymo ah inuu aqbalay laaluush, khiyaanooyin iyo jebinta kalsoonida waddanka. wuu sadafiray arrinkaasi isagoo ku tilmaamay eedeymo khalad ah, balse maxkamadiisa ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira xanibaado uu wasiirka cadaaladda si ku meel gaar ah u saaray maxkamadaha kadib dhibaatada coronavirus-ka. waxaana la qorsheeyay in dhageysiga dacwaddaasi dib loo bilaabo dhammaadka bishan. toddobaadkii hore ayaa qareenka guud ee Israa'iil ninka lagu magacaabo Avijay Mandelblit waxa uu fikirkiisa uu ku biiriyay maxkamadda, isagoo sheegay in eedeymaha Netanyahu ay kor u qaadayaan dhibaatooyin muhiim ah. ma jirin wax sharci ah oo ka horjoogsanaya buu yiri inuu hawsha xafiiska ra'iisul wasaaraha uu qabto inta uu wajahayo dacwado dambi ah. waad ku mahadsantihiin dhageystayaal qodobadaasi wararka oo aad kala socoteen Wardowr Media. tan iyo inta aan dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe garee, balse haddii aad tahay macmiil soo noqday ha iloobin in aad gambaleelka aad furato oo aad click aad siiso si aad u hesho wararka ugu dambeeya ee aanu soo gelino channelkan. dhammaantiin waxaan ka qayb qaadan karnaa ka hortagga faafidda cudurka coronavirus. marka aad raacdo tallaabooyinkan fudud, waxaad naftaada iyo bulshadaba ka ilaalin kartaa qaadida iyo faafidda COVID-19. si joogto ah ugu dhaq gacmahaaga biyo iyo saamuun muddo 20 ilbiriqsi ah. ha taaban afkaaga, sankaaga iyo indhahaaga. ka fogow goobaha dadku ku badan yihiin una jirso masaafo dhan 6 feet dadka aad u malaynayso inay jiran yihiin. ka fiiri calaamadaha sida xumada, qufaca ama neefyarida naftaada iyo qoyskaagaba. la xiriir dhakhtarkaaga haddii aad dareento xanuun. fadlan raac tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo ururka caafimaadka adduunka. marka aad raacdo tallaabooyinkan, waxaad gacan ka geysan kartaa ilaalinta naftaada iyo dadka kaleba. naga caawi inaan muuqaalkan la wadaagno asxaabta, qoyska iyo dadka kale. wixii macluumaad intaa dheer, fadlan raac tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo ururka caafimaadka adduunka.